3D mjeda 3D hadii waliba oo aan halkan furo shaded maada si dhaxna mjeda fiir qaabkan uu yaala okay marka la igu celi floorka koowaad igey marka hore waxa joogay foundation hadda floorka koowaad igey waxaan rabaa inaan sawir column iska mar structural tag ka bacdi column ka dooro inta fur markaas waxaan leeyahay marka rectangular column ka soo dooranaya edit tema si dhaxaya duplicate de markaan column ka marka c ka soo gaabanaya column ka 200 ka bacdi waxaan ku sii dhufanayaa 200 400 leh 200 450 200 450 leh column ka marka oo millimeter marka bdiisa column ka waa 200 height kiisa waa 450 way ugu jirtaa okay sida way dooranta sax ka bacdi marka waxa leeyahay markale aad grid sababtoo hadii caadi kali u baahan tahay mid walba kali waa siin kartaa laga yaabo waxaan u baahnaa aad grid nado okay aad grid saas igu soo geli marka column ka okay sorry horta column inta aad dhigin ka hor option badan oo jiro oo column ku sii doono marka optionadaas ila structure de column iska aad dib ugu noqon mar kale okay markuu saanya marka inta waxa ka dooranayna height meeshaas height ka dooranayna floorku ka bilaabanayana waa floorka koowaad sorry kaas waa midku ku xirmaya waa floorka marka lagu celi column de structural tag horta waxaan sii dooranayaa column inta waa height ka doorto okay ku saxan yahay aad grid ka dooro marka halkaan qabo ilaa inta geey okay 3D fiir marka qaab uu noqday 3D aan qaab uu soo muuqdo fiir okay weli okay waxa dhada yani finish ma dhihin sorry aad grid de marka hadda aad grid marka dhahdo sidaan u qabo wada geey markuu meesha ugu soo bax finish marka marka hadda waxa tagtaa 3D tag qaabkan marka kugu soo muuqanaya column kaaga من column layout kaaga sidaan ayuu kugu soo muuqanayaa column footing marka iskuma dhigana mjeeda column footing iskuma dhigana waliba waxa si fiican oo qurux badan uga arki karnaa marka elevationada geeno kale hadda fiir salaad east hada tago mjeeda column wuxuu ka bilaabanayaa first floor meesha marka waxa uu talgalnay inay noqoto waa metri 20 waay sida darteed marka waxay noqonaysaa wax la yiraahdo column neck I think ina aragtay meelaha saadeedkii meelaha ina ku aragto waan u maleynayaa marka okay column ka marka soo sawiro haddana waxa rabaa inaan soo sawiro aniga first floor joogo column neck inaan soo sawiro markuu saanya marka fiir waxaan dhahay marka inaan soo doorto marka inaan soo geliyo column neck qaabka soo gelinaya marka waxaan dooranayaa column marka column doorto markaas marka waxaan dhahayaa okay markuu ii soo bax markaas waxaan leeyahay ilaa hore anu haystikan 200 iyo 50 markaas waxaan leeyahay add grid marka dhaw marka intaan ka qabanayaa ilaa halkaan aan geenayaa marka ilaa halkaan ayaan geenayaa markaas waxaan leeyahay finish okay finish marka dhaw marka waxaan leeyahay 3D gay jeda waxaa aragtaa column-ka in ay muuqato inuu meel iskaga imaanayo haddii aan east tago yani mjeeda kuwaan waxaa loo yaqaanaa waa column neck kuwaan waa normal column waa column-ka caadi kuwaan waa footing-ka iyo wixii kale markaas lamid ah okay markuu sidaan yahay marka halkaa markaa joogo haddana waxaan tagayaa levelka labaad waxaan darowgareynayaa beamski marka qaabka u darowgareyn doonaa marka waa u darowgareynayaa okay waxaan leeyahay beams aan leeyahay sidoo kale haddana beamska soo dooro horta marka hore structural wayna tagtaa kabacdi beams tag halkaan soo furo qaybtaan marka furo marka qaybtaan furo waxaan ka dooranayaa marka concrete structural beam ka dooro mid kamid ah okay kabacdi waxaan leeyahay marka edit tape marka dhawo duplicate aan leeyahay beamkii magaca la baxaya beam waxaan leeyahay 200 sidoo kale 400 ama waxaan leeyahay beamka inuu u noqdo 200 600 beamkaaga 200 600 ayaa markaas rabaa beamka inuu u noqdo okay inta marka waxaan ka dhigayaa dhahay 200 600 na way ugu jirtaa okay magacaas ayuu qaadan doonaa marka calaamadda magaca marka waxaa rabaa meesha waxaa rabaa calaamadda oo dash inaan geliyo okay
okay sidee marka saas soo bedelena ka bacdi calena okay beamka markuu sidaan yahay marka waxaan leeyahay marka on the grid asaga tirkiisa ilaa waxaan rabaa kuwaan dhan inuu kusoo sawiraa rabaa beamka jeeda beamkeygaan inaa kuwaan dhan kusoo sawiraa rabaa qaabkee uu sawiraa marka waxaan leeyahay on the grid yani meel walba uu gridkaaga maro ku sawir sidaasaa marka ugu soo dhufanayaa jeeda okay markaasaa marka waxaan leeyahay marka beamkeyga xitaa hadda waxaa muuqdaan tusaalahaan oo kale beamka 200 600 oo kale meeshaad kusoo qordhaa magaca uu soo sameyna xitaa waa muuqdaa maxaa sababay taas markaan fiirina marka taas waxaa sababa marka calaamadan tagged on the place tag on the placement ayaa sabab waa ayaa iyada markaas noo dooran tag on the placement ayaa iyada markaas noo dooran soo dibka okay marka waxaa sababay marka kana marka waxaa sababay in magacii uu soo bixinay haddana marka waxaa sidoo kale click siinay on the tag haddii marka aan click ka qaado fiiri marka haddii aan kana ka qaado oo maxay ahayd on saan soo darow gareeyo qaabku noqdo fiiri ujeeda qaabka uu noqonaa beamka marka qaabkaan aan qaadanayna markaas waxaan leeyahay finish sida marka finish sida marka beamkii qaabkaan uu soo muuqan doonaa 3D ahaan haddaan fiiriyana waxa uu noqon doonaa sidaan ayuu ku soo bixi doonaa beamka jeeda beamka wuxuu ku soo baxay this way qaabkaan ayuu markaas ku soo baxay okay faloorada kale rabaa marka inaan geeyo marka faloorada kale inaan geeyo rabaa marka faloorada kale inaan geeyo insha Allah okay marka waxaan dhahayaa waxaan tagayaa faloorka labaad tag faloorka marka tago waxaan dooranayaa intaan dooro marka dood ka bacdi filter marka filter grid iska reebis wixii kala qaado okay markaas waxaan leeyahay okay marka dhado inta waxaa sameysaa calaamada koobiga taawo click C ka bacdi inta fur calaamada dheh level 1 ilaa level 3 iyo 4 rabisna dhig okay insha Allah marka saas sameysid ka bacdi aan 3D fiiriyo marka qaabkaan kugu soo muuqdo marka qaabkaan ayuu noogu soo muuqdo ismihii markaas structure-ka ahaa sidaan ayaa uu noogu soo muuqday sidoo kale waxaa rabaa marka maadaama aan soo sawiray footinkii columnkiina aan soo sawiray beamkiina aan soo gelinay in haddana sidoo kale waxaa noo dhiman slabka iyo sidoo kale waxaa noo dhiman staircase-ka noo dhiman qaabkee asagana markaasi usoo darowgareynayna anigoo markaasi tegaya faloorka labaad ayaan structure waxaan ka dooranayaa slab ayaan ka dooranayaa slab click C markaa slab doorto ka bacdi marka intaa furayaa marka waxaan leeyahay okay marka edit tab kana marka waxaan ula baxayaa slab oo weliba cabirkiisa 15 senti okay 15 senti waa sama deptiisa markaan ka soo dhigo inta soo doorto slabka waa 15 senti way tahay okay ka soo okay sida slabka marka magaciisa wuxuu u yahay slab waa 50 okay markaas waxaan leeyahay marka rectangular panel ahaan igu soo dooro panel ugu soo xirxir inta marka waxaan leeyahay click C sidoo kale intana click soo C panel ugu soo xirxirayaa panel ugu soo xirxiri kartaa okay mid walbaba sidaan ugu soo xirxir sidaan ugu soo xirxirnaa okay kasoo kana okay sidoo kale kana okay sii wadna marka okay midka ugu dambeeya okay sidaa markuu yahay markaas marka waxaan leeyahay finish marka iskana hubi mid walbaba inuu beamka afka u saaran yahay markaas waxaan leeyahay finish marka dhao slabka marka qaabkaan kugu soo muuqanaya sida aragtid jeeda
slaabka qaabkan ayuu markaas noo soo muuqanayaa aan 3D aan fiiriye marka qaabkee ayuu markaas noqday okay 3Dgiisa marka saan uu yaalaa marka waa kaas jeedaa beamkeeni dhismaheeni ama structurekeeni ujeedaa sidaan ayuu markaas usoo muuqanayaa waxaan rabaa marka slaabka inaan qaado oo aan geeyo qeybaha kale click c slaabkaaga sidoo kale markaas waxaan dhahayaa inta click ECC inta fur align de marka waxaan 3 4 geey slaabka click c okay kuwa kalena si automatically markaasi ayuu sidaas ugu saarmi doonaa marka ujeedaa dhismaheeni marka sidaan ayuu markaa noo sii naqday